salaamu ullaahi calaykum subax wanaagsan khiyaartana daawanaysaay waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey kubadda cagta xilligan qodobada ugu waaweyn aan idinku hayo waxaa ka mid ah xiriirkii jaceyl ee u dhexeeyey Sadio Mane iyo Liverpool waa uu soo dhammaaday laacibka kooxda waa uu weeraray go'aankiisana waa uu caddeeyey cidda go'aamin doonta mustaqbalkiisa qalcadaasi Anfield Karim Benzema oo u jawaabay xidiga lagu magacaabo Lionel Messi arrinta ku aadan abaalmarinta kubadda dahabka ee sanadka 2022 xidigaha kale ah Mbappe iyo Varane iyana waa ay dhaawacmeen wararkii ugu dambeeyey suuqa kale iibsiga Liverpool iyana markaasi maxaa xal u ah waxaan kaloo ku dul istaagi doonaa Arsenal weeraryahan u dhigmi kara Mbappe ayay soo wadaan qodobada ay kuwa kale aan daawadeel ku eegi doonaa dhammaan waxay u badan yihiin xanta suuqa kale iibsiga kuwoodii ugu waaweyn ayaan saaka soo qaadnay dabcan warkayga kale ayaad kaga bogan doontaan haddii kooxdaada warkeeda haatan aadan kaga bogan warka hore ee Somali Super Sport u diyaar garooba ikhyaare xidiga lagu magacaabo Karim Benzema ayaa muujiyey sida uu ula dhacsan yahay war ka soo yeeray xidiga Lionel Messi kaasoo dhowaan sheegay in laacibkan uu u qalmo ku guuleysiga abaalmarinta kubadda dahabka sanadka 2022 Benzema ayaa haatan lagu tirinayaa xidigaha ugu cadcad ee sanadkani markaasi ku guuleysan kara abaalmarinta ESPN ee dalkaasi Spain laga leeyahay ayuu ka yiri waan maqlay warka ka soo yeeray laacibkii hore nadiga Barcelona ee Lionel Messi aad ayaan ugu faraxsanahay in warkan uu ka soo yeero xidig Lionel Messi waxay tani isiinaysaa dhiirigelin ku aadan in wax badan aan ka dhex qabto gudaha garoonka ayuu yiri xidigani Karim Benzema wararka ka imaanaya naadiga Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska ayaa ku waramaya in kooxda ay go'aan ku gaareen inay ka takhalusaan macalinkooda ninka lagu magacaabo Mauricio ayaa aad loola xiriirinaya ka tagista kooxdaasi Paris Saint-Germain kadib markii ay macsalaamiyeen championka kooxdaasi Paris Saint-Germain tababarayaasha lala xiriirinayo waxaa ugu horeeya macalinkii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane wariyaha u dhashay waddanka Talyaaniga ee arrimaha suuqa kala iibsiga caanka ku ah Romano ayaa sheegay in maalmaha soo socda Paris Saint-Germain ay ka takhalusi doonto macalinka kulan ayaa dhici doona oo go'aanka madambeysa looga gaari doono waxaana keliya la sugayaa ee la leeyahay inuu soo laabto Nasir Al-Khalifi agaasimaha guud ee naadigaasi Paris Saint-Germain wararka ka imaanaya dalkaasi Faransiiska ayaa muujinaya walaac ku aadan nooca dhaawac gaaray xidigaha kale ah Mbappe iyo daafaca Manchester United Varane kuwaas oo ku dhaawacmay kulankii guuldarada qarankooda ay kala kulmeen Denmark kuwaas oo markaasi kaga takhalusay 2 gool iyo 1 UEFA Nation League groups ay ciyaarayeen waxaana labada laacib garoonka laga kala saaray daqiiqadii 46 iyo 61 haatan idaacadda Radio Monte Carlo ee dalkaasi Faransiiska waxay sheegaysaa in laacibiintaasi ay ka kala sheeganayaan jilibka oo ah xidiga Mbappe iyo waliba muruqa uu ka sheeganayo xidiga kale ee Varane dadka arrimaha caafimaadka ee ciyaaryahanada qiimeeyay waxa ay leeyihiin waxa laga yaabaa in ciyaartoydani dhowr toddobaad dhaawacyadaasi ay kaga maqnaadaan garoonka haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay Somali Super Sport fadlan subscribe saar haddii uu ku yahay mar kale gambareelka furo sidoo kale followde barta aynu ku leenahay Facebooka ee Somali Super Sport xiriirkii jaceyl ee u dhexeeyey Sadio Mane iyo Liverpool waa uu soo dhamaanaya markaan wax qarsoon ma jira laacibka waa uu baxayaa weliba isaga oo weeraraya maamulka kooxda intaanan aadin weerarka uu ku qaaday wariye u dhashay dalkaasi ee Senegal ayaa soo qoray oo wareysi laacibka la yeeshay laakiin ugu dambeyntii waa uu tirtiray intaan u taa aadin haatan shaki weyn ayuu geliyey laacibka mustaqbalkiisa waxa uuna muujiyey inuu ka tagayo qalcadaasi lagu magacaabo Anfield ugu horeyntii mahadcelin ayuu u jeediyey taageerayaasha Liverpool iyo macalinka
kooxdaasi ee Club. Kulan wareed uu qabtay ka hor kulanka qarankiisa ay Benin la ciyaarayaan. Waxa uu yiri caadiyan sida dadka kale waxaanu ku jiraa baraha bulshada boqolkiiba 60 ilaa iyo 70 dadka u dhashay waddanka Senegal waxa ay doonayaan inaan ka huleelo oo aan ka tago naadiga Liverpool. Ra'yigaaga waa sida ay leeyihiin. Waan u jawaabayaa waxaan sameynayaa waxa ay iyagu ay rabaan ayuu yiri. waynu arkaynaa dhowaan ayuu yiri. Laacibkani dhanka kale waxa uu sheegay in markaasi degdeg badan aanu jirin wax walibana si wada jir ay u wada sameynayaan isaga iyo taageerayaashiisa u dhashay waddankaasi Senegal. Qandaraaskiisa waxa uu dhacayaa 2023 Bayern Munich ayaa haatan si weyn loola xiriirinaya. Dhanka kale laacibkani waxaa la yiri waxa uu sheegay in markaasi wax dareena aan u haynin naadiga Liverpool kaliya uu ixtiraamayo kooxda iyo waliba taageerayaasha. warkaasi wariye u dhashay dalkaasi Senegal oo Joseph Akpuyele lagu magacaabo ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay oo waraysi la yeeshay laacibka. Laakiin ugu dambeyntii waa uu tirtiray taana lama garan. Laakiin arrinta in uu laacibkani sameynayo waxa ay rabaan dadka u dhashay waddanka Senegal afkiisa ayuu ku sheegay. Haddaba daawade ma is leedahay Bayern Munich laacibkani waa uu ku soo baxaya go'aanka uu qaadanayo uu kaga tagayo Liverpoolna markaasi ma yahay mid saxan qaybta hoose komitiga taga fikradaada si saxa u dhiibo. naadiga Arsenal iyo Tottenham ayaa haysta fursad cajiib ah oo ku aadan inay helaan mid ka mid ah daafacyada naadiga Barcelona. laakiin loolan waxay kala kulmayaan naadiga Juventus ee dalkaasi Talyaaniga. wargeyska lagu magacaabo Metro ayaa ka soo xiganaya kuwa kale ee dalkaasi Spain in daafaca Barcelona Lenglet loo bandhigay haatan in qaab amaah ay ku qaataan midkood Arsenal iyo waliba Tottenham. 26 sano jirkan oo lugta bidix ku ciyaara 160 kulan ayuu u saftay kooxdaasi tani markii uu yimid dhammaan tartamada. waxaana haatan loolankiisa ku soo biirtay naadiga Juventus kuwaas oo la tilmaamayo in si dhab ay u doonayaan. qandaraaskiisa waxa uu dhacayaa 2026 waxaana la tilmaamayaa in haatan keliya jawaab laga sugayo kooxahaasi Tottenham oo loo bandhigay in amaah ay ku qaataan laacibka. naadiga AC Milan iyo Juventus iyana waxay u dhow yihiin inay ku guuleystaan oo ay afduubtaan Pulisic oo ciyaara naadigaasi Chelsea. laacibkaas mustaqbalkiisa waa uu ka hadlay waxa uu yiri waxaan doonayaa in daqiiqado badan aan ciyaaro haatan waxaan xooga saaraya qaranka uu ku maqan yahay. wuxuu yiri aan aragno wax waliba. wargeyska Daily Mail ayuu sheegay in go'aankiisa uu kala cadoon doono toddobaadyada markaasi soo socda. 115 kulan ayuu u saftay naadigaasi Chelsea dhammaan tartamada 25 goolna markaasi shabaqa ayuu dhigay. waa hagaag daawadayaal wararka kale naadiga Juventus qandaraas 3 sano ayay u bandhigeen Paul Pogba. laakiin waxaa markaa la leeyahay laacibku wuxuu ka fikirayaa dhanka iyo naadiga kale ee Paris Saint-Germain. isna waxa uu iska diidayaa fursad markaasi macalinkiisii hore Jose Mourinho uu kula midoobi karo naadigaasi Rome. laacibku wuxuu door bidaya ayaa la leeyahay in baaqi uu ku ahdo horyaalka waddankaasi Spain. dabcan laacibkani xiriir wacan kalama dhexeeya macalin Jose Mourinho. Manchester United Thomas Ziebe iyo waliba Eric Bailly ayaa la leeyahay waa ay fasaxayaan oo markaasi waa ay ka takhalusayaan. waayaga daawadayaal wararka kale ugu dambeeya waxaa ka mid ah naadigaasi lagu magacaabo Arsenal waxay diyaar u yihiin in markaasi lacagta ay doonayso Napoli ay bixiyeen oo ku aadan xidiga reer Nigeria lagu magacaabo Victor Osimhen in markaasi ay helaan oo haatan weeraryahan dhaba ayay doonayaan. waa hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo xanta suuqa kala iibsiga waa naga intaa. fadlan sii share garay insha Allah saacada kadib ayaa markale dib isugu soo laaban doonaa iyo saaxiibkay Fuad. waa saaxiibkiin fantastic na dhiirigeli fi amaanillah.